kiisaska dhulalka la xiriira ee ka socda magaalada Muqdisho faraha ayay ka sii baxayaan oo maalinba maalinta ka dambeysa deegaan cusub ayaa dad laga barakicinayaa saacadii ugu dambeeyna xaaladan ayaa ka taagneed qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho shacabkii guriyaha ayay ku jiri waayeen barnaanka ayayna u soo baxeen in ay cabasho muujiyaan laakiin jawaabtooda waxay noqotay in xabsiga loo dhaadhiciyo qof kasta oo madaxda dawladda gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arinta barakicinta ee socota ku eedeeya mas'uulkan ama ninkan shacabka ah ayaana goordhow xabsiga ay u taxabeen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya haddaba maxaa ka socda magaalada Muqdisho si gaar ah samaanta dadkan banaan baxaya waa halkee meesha laga barakicinayo muuqaalkan ayaan idinkugu faahfaahinayaa soo dhawaada daawadayaal muuqaalka inoo sheer gareeya shacabkan aad arkaysaan ee banaanka taagan ee cabanaya waxa soo bixiya waxay tahay in dhul boobka magaalada Muqdisho ka socda uu maanta si toos ah iyaga u saameeyay oo waxa dadkan aad arkaysaan ay isugu soo baxeen suuqii Xamar Jadiid oo ka tirsan waa suuqii xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir waxaa lagu wargeliyay in madaxda dawladda Soomaaliya ay shakhsiyaad ganacsato ah iyo xubno qaraabo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu wareejiyay sidaas daraadeedna ay markaasi halkaasi baneeyaan haddaba Xamar Jadiid suuqa ku yaalay oo muddo dheer shaqeynayay waa kuwee shakhsiyaadka lagu wareejiyay ee qaarkood markaasi ay aad u yaqaanaan dadka reer Muqdisho macluumaadka la ila wadaagay ee ku saabsan suuqa Xamar Jadiid oo burburin la filayo in lagu bilaabo waxaa la sheegay in lagu wareejiyay mas'uulkan aad arkaysaan sawirkiisa oo lagu magacaabo Muxyidiin Xasan Jurus Saabay horay waxa uu uga mid ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya laakiin dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arin musuqmaasuq ku soo oogtay oo maxkamadda gobolka Banaadir ayaa looga yeeray xilligaas Muxyidiin Saabay dalka ayuu isaga baxsaday oo dhinaca Uganda ayuu aaday iyadoo sababta iyo hanaanka magaalada Muqdisho xilligaasi uga baxsaday ay ahayd mid ay dadka reer Muqdisho la yaabeen waxa markii uu soo laabtay oo markaasi kiiskanna banaanka laga geeyay markaasi dhacday in loogu abaalgudo in uu ka mid noqdo dadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhulka arinta la xiriira oo ku naasnuujinayay bilihii ugu dambeeyay oo meelo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa isaga gacanta loo geliyay waxaana meelahaasi ka mid noqday suuqa xaafadda Xamar Jadiid ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir kaligiis miyaa mashruuca suuqan lagu wareejiyay waxa faahfaahintu ay sheegaysaa in nin kale oo la yiraahdo Siciid Nootaayo oo asna magaalada Muqdisho caanka ah uu Xamar Jadiid suuqi ku yaalay dadka lagu wareejiyay kamid yahay sidaas daraadeedna shacabka guriyaha ay ku jiri waayeen qoysas badan ayaana suuqan noloshoodu ay ku tiirsaneed oo ku ganacsan jiray ilmana ka korsan jiray laakiin labadan mas'uul ayaa la sheegay in lagu wareejiyay sidaas daraadeedna waxa la filayo waxay tahay in toddobaadkan gudihiisa ciidan booliska gobolka Banaadir ka tirsan in halkaas ay tagaan burburinna ay ku sameeyaan sidaasina ganacsatadan iyo mas'uuliyiintan kale ee dawladda ka tirsan ay uga macaashaan arintaas marka laga tago ninkan sawirkiisa aad arkaysaan waxaa lagu magacaabaa Xuseen Xaadoole waxaa maalmo ka hor uu warbaahinta markaasi ka dhaliilay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo oo ku eedeynaya musuq baahsan iyo barakicinta dadka shacabka ah markaasi lagu sameeyay laakiin maalmo kadib markii hadalkaas uu jeediyay waxaa dhacday in maanta ciidamo ka tirsan booliska gobolka Banaadir ay ka dhex qabtaan Xamarweyne oo gobolka Banaadir ka tirsan haddana mid ka mid ah saldhigyada booliska ee gobolka Banaadir ayuu ku xiran yahay waxa lagu haysana waxay tahay maxaad uga hadashay musuqa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu ay sameynayso arinta la yaab kale waxay tahay dadka barakicin ayaa lagu hayaa qof kasta oo ka cabtana xabsi ayaa loogu abaalgudayaa xaaladaas ayaa magaalada Muqdisho saacadii ugu dambeeyay ka taagneyd waana mahadsantiin